asalaamu calaykum asxaabtayda daryeel kitchen soo dhawaada gacmo furan maanta waxaa idiin wadaa doorsho aad liga soo codsaday oo ah doorsho liin laga sameynayo waxaana inoo socda rasabiyada af soomaaliga ku baxaayo marka u horeysa waxaan ku bilaabeynaa subageeni subaga cabaar ayaad banaanka dhigaysaa kadib waxaan ku darsanaynaa sokorta resibiga qoraal waxaad ka helaysaa qeybta hoose oo descriptionka intaas markaa isku qastid adi ilaa 5 daqiiqa camal waxaan ku darsanaynaa hadda ukuntan waxaa laga rabaa talaagada inaad kasoo bixisid cabaar banaanka taalo adi ilaa 10 ilaa 15 daqiiqo waxaana sameynaysaa ukunta hal ayaa ugu dareysaa haddii aad ku wada darto mixka ayaa kaa qasmaayo marka hal ayaa ugu dareysaa si oo maaragtay dheelitiran kadib waa isku wada qaseynaa insha allah markaa isku wada qasno resibigan waa resibi aad iyo aad u fudud waxaa inoo haray hadda inaan ku darsano carfisadeeni carfisada oo ah faniilaha haddaadan haysanin midka oo qoyan waxaad ku darsan kartaa midka oo qalalan oo powderka ah haddaadan haysanin waxaa kaloo isticmaali kartaa qarfe shiidan muhiimada waa inay doorshada caraf yeelato haddana waxaan ku darsanaynaa burkan waa midka baleenka oo qameerka lahayn kadib waxaa ku darsanaynaa baking powderka iyo isku shaqshaqeynaa intaas markaa isku shaqshaqtid qasab ma aha shaqshaqa laakiin xoogo doorshada markii la shaqshaqo waxay ku noqonaysaa doorsho yar oo iska yara jilicsan haddaadan waqti u haynin waa iska dhaafi kartaa burkana markaa ku dareysid waxaa sameynaya iyar ayaa ugu dareysa haddaa hal mar ku wada dartid waxaa waay uu ka adkaanaya waxaan kaloo ku daray liin aan shiiday ama liin oo yacni aan miiray iyo qolofkeeda maadaama ay tahay doorsho liin waxaa fiican liinta biyaheedana lagu daro haddana waxaan ku daray koob caano ah caanahana doorshada way jilcinaysaa haddaadan caano haysanin ama waxaa ku bedeli kartaa yogorka ama garoor waxaa muhiimada doorshada markii caanaha ama garoorka lagu daro xoogo yar way yara jilceysaa marka intaas waaye haddaa rabti waa ka dhaafi kartaa waa ku bedelan kartaa maaragtay orange ama liin oo maaragtay biyaheeda laakiin resibigan isku day inaad sidaan u follow garaysa insha allah intaas markaa sameyno hadda waxaa sameynaynaa wixiina waa isku qasmeen waxaa ku dareynaa bahalka aan ku dubi lahayn ama baaquliga waxaana muhiima inaad batar iska marisid waxaan saaray warqad hadaa haysan batar mari buryar ku daadi xoogo warqad waxay kaa caawinaysaa markaad soo bixinaysid in doorshadii isla hal mar aad soo bixisid laakiin waxaanoo kale waxaa waay wax maaragtay iska extra ah haddaadan haysanin qasab ma ahan waxaa kaloo sameynaya doorshada yaro qaraac kadib doorshadeenna waa soo dubnay alxamdulilah adiga foornada waxay ku jirta ilaa 30 daqiiqa camal muhiimada waa inaad markaa qori gelisid inay maaragtay dhexda ay bislaatay waxaa kaloo hadda sameynaynaa oo kor ugu dareynaa liin miiran iyo sokorta budada sokortan waa nooca shiidan oo budada ah intaas ayaa isku qaseynaa doorshadan drizzle-keyga ayaa la dhahaa waa doorsho kor ka wadato sokor yar oo liin leh oona dhegdhegaysa xogo waa maaragtay doorsho yar oo meelaha oo wastanka laga yaqaano laakiin meel walba waa laga sameysan karaa mar haddaa resibiga basic ay keentid the rest adaa sameysan kartid marka asxaabtaydii doorshadiisaan ayay ku dhammaatay sooskaas yaroo kor loogu shubayo maaragtay doorshada wuxuu ka dhigayaa 10 maaragtay 100% doorsho yaroo quruxsan galabtii iska duban kartaa ilmahaada la duban kartaa keligaa duban kartid marti haddii kuu soo socoto 30 daqiiqa bas ayay qaadanaysaa marka waana doorsho jilacsan gudaheedana haddaa aragtaan waa kaasa liinna way leedahay xoogo koob qaxwo u karso koob shaah u karso maaragtay casari yaroo fiican marka asxaabi waxaa jeclaa videoga inaad ka hesheen haddii aad ka heshay like buttonka hayla moogaanin haddii adigu cusub tahayna subscribe buttonka ii saar wixii su-aalla commentiga igu soo qor insha allah intaan mar kale wada kulmi doono waxaa idinkaga tagaya assalaamu calaykum